illallah, 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 sallallahu ala sayyidina. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله intaa ka bacdi waxaynu mar labaad isugu soo noqonnay barnaamijkii arrimaha islaamka ee ka bixi jiray tv-ga afro t v waxaynu insha allahu tacaala maanta ka hadli doonaa maadaama aynu ku jirno tobanka beri ee u horeeyay bisha loo yaqaan dilxija tobankaa beri acmaasha la qabto iyo fadliga ay leedahay inaan wax ka tilmaano haddii aan ka gaarnaan insha allahu tacaala inaanu acmaasha la qabto ku darno maalinta ciidda ah iyo waxyaalaha qofka muslimka laga doonayo inuu la yimaado marka u horeysa tobankan beri ee bisha ramadaan bishan u horeysa loo yaqaan dilxija ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa sida culamadu tilmaameen ayuu ku tilmaamay isagoo ku dhaaranaya waxa alla subxaanahu wa tacala qur-aankiisa ku leeyahay wاlfajr walayaalin cashr aayaddaasi suuraة اlfajri ku jirta waxa alla subxaanaه wa tacala leeyahay waxaan ku dhaartay fajriga xilliga subaxdii baan ku dhaartay iyo walayaalin cashri tobanka beri habeenno toban ah ayaan ku dhaartay tobankaa beri oo alla subxaanaه wa tacaala ku dhaartay haddaba maxay yihiin ibnu jariir طabri raximah اllahu tacaala tafsiirkiisa isagoo tilmaamaya wuxuu leeyahay sida sawaabka ah oo annagu aanu qabnaa ilaahay subxaanahu wa tacala aayaddaasi wuxuu ka wadaa inay tahay tobanka beri ee bisha u horeysa dilxija waana sida ay daliishanayaan xujaysanayaan dadka culummada buu yihi oo ahlu tawiilka loo yaqaan ama tafsiirka qur-aanka alla subxaanahu wa tacaala uu baray marka habeenadaas tobanka oo alla subxaanahu wa tacala leeyahay waxaan ku dhaartay habeenno toban ah waxa uu leeyahay waxa weeyaan waa tobanka beri ama tobanka habeen u horeeya bisha loo yaqaano dilxija aynu caawa ku jirno ama haddaynu ku jirno sidoo kale imaamu qurdubi raximah اllahu tacaala waxa uu leeyahay waa la nakireeyey waxaa loo nakireeyey wax kalena maahana waxa weye fadilada ay leedahay layaal baa layidhi yani lagama dhigin wax habeenno la yaqaan lagama dhigin waxa looga dhigi waayey fadliga ay ka fadli badan yihiin habeenadaani habeenooyinka kale ka fadli badan yihiin marka fadliga isagaahi baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhaartay sidoo kale ibnu kathiir raximah اllahu tacaala tafsiirkiisa waxa uu leeyahy markuu ka hadlayey aayaddan walayaalin cashr dhaarashada alla subxaanahu wa tacala ku dhaartay tobanka habeen waxa uu leeyahay almuraadu biha waxaa loola jeedaa tobanka habeen oo alla subxaanahu wa tacala ku dhaartay danta laga leeyahy waxa weeyaan cashru dilxija bisha loo yaqaan dilxija tobankeeda weeyaan sida uu arinkaas ka soo naqlinayo ibnu kathiir raximah اllahu tacaala wuxuu ka soo naqlinaya ama dalxajana waa la yihahdaa waxaa laga soo naqlinayaa ibnu cabaas
ibnu cabaas radi allahu tacala canhu oo saxaabiga ah wa bna zubayr waa cabdullahi bn zubayr weeyaan saxaabiya iyo mujaahid oo taabiciya ayuu ka soo wariyey wagayru waaxidin min asaxaaba min asalaf iyo intaa ka badan oo raggii salafka ayaa soo gudbiyey buu leeyahay marka ibnu kathiir isagu marka uu caddeeyey tobankan habeen in alla subxaanahu wa tacala uu ka wado tobanka habeen u horeeya bisha loo yaqaan dilxija wuxuu keeno leeyahay waxaan ka soo naqliyey raggaa salafka ah oo saxaabada iyo taabiciinta isugu jira allah subxaanahu wa tacaala dhaarashada uu ku dhaartay habeenadaas dilxija u horeeya oona ku jirno haddeer waxay ku tusayaan fadliga ay leedahay iyo weynaanta ay leedahay maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weyneysiiyey oo allah subxaanahu wa tacaala buunbuuniyey oo allah subxaanahu wa tacala ku dhaartay imaamu shawkani raximah llahu tacaala isna wuxuu leeyahay tobankaa beri allah subxaanahu wa tacala ku dhaartay waa tobanka u horeysa bishaan dilxija loo yaqaano u horeeyo waana fii qowli majhuur yani jamhuur buu leeyahay arrinkaa isaga jamhuur mufasiriin qowl uu ka soo naqlinayo weeyaan walow bacd alculamaa ama haddaa fiiriso mufasiriinta qeyb ka midihii ama kutubta tafaasiirta qeyb ka midihii ay tilmaamaan tobanka habeen inay allah subxaanahu wa tacala ku dhaartay oo walayaalin cashri allah subxaanahu wa tacala ku dhaartay inay tahay 10 habeen oo ka mid ramadaanka sida haddii aad fiiriso kitaabka loo yaqaan ama tafsiirka ibnu sacdi raximah llahu tacala markaa fiiriso wuxuu leeyahay wahiya cala saxiixi layaali cashri ramadaan ow cashri dilxija sida saxda waxa weeyaan tobanka allah subxana wa tacala wuxuu ka wadaa 10 habeen oo 10 habeen u dambeeya ramadaanka ama 10 habeen ee bisha loo yaqaan dilxija u horeeya marka labadaba isagu waa ku tilmaamay arrinkaa isaga ahi marka bishaasi aynu ku jirno maantay fadaaisha noocaas oo kale aba allah subxaanahu wa tacaala ku sheegay maadaama allah ku dhaartay marka inaynu ka faa'iidaysano oo tobanka bisha u horeeya dilxija oo dadku marka xilligay xajka aadayaan si loo garto bisha loo yaqaan dilxija waa bisha yacni xajka la aado oo maanta sideedaad waxaan u malnaya berri bay 8 tahay yowmu tarwiya loo yaqaanaa oo dadka maarata biyan dhaansiga galayaan oo ay dhaqaaqayaan minay halka aadayaan marka tobanka habeen oo u horeeya bisha aynu ku jirno fadligaas bay maaragtay leeyihiin maadaama ilaahi subxaanahu wa tacala ku dhaartay nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxaa laga wariyey xadiis uu warinaya cabdullahi bni cabaas baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau leeyahay camal la sameeyo camal wanaagsan oo la sameeyo maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihina axabu ilى اllah min hadihi اlayaami اlcashra wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabaas camal la sameeyo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka jacayl badan yahay ma jirto tobankan habeen lala yimaado sadaqada alla baxda bishaan iyada ahay tobankan beri u horeysa iyo isku mid maaha bilaha kale oo sida mataqaanaa rabiic awal iyo rabiic thaani oo kale sadaqada la baxda isku mid ma aha bishaan sadaqada la baxdaa fiican oo badan salaada aad tukato kuwa bilahaas aad tukato la mid ma aha tobankan beri salaada tukato baa yani waxay badan tahay ajar iyo khayr badan oo ilahay sii jecel yahay marka nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay camal saalix oo la sameeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacala ka jecel badan yahay ma jiro camalka tobanka beri la sameynayo saxaabadu waa la yaabeen markii camalkaasi nabiga calayh isalaatu wasalaam ku tilmaamay alla inuu ka jecel yahay camal kasta waxay soo qabteen acmaasha alla ugu jeclay mid ka mid ah faqaaluu ya rasuula allah waxay dhaheen rasuulka ilaahayow wala aljihaadu fii sabiili illah oo ma waxaad leedahay xataa jihaadkii fii sabiili illahi ahaa waxaa ka fadli badan tobankan beri camalka lala yimaado lanna jihaadku waxay ka mid tahay acmaasha aada u fadli badan heer la gaaray ilaahay subxaanahu wa tacala uu karaameeyey qofka lagu dilo jidka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu allah subxaanahu wa tacala ku karaameeyey in sidiisa loo aaso isagoo dhiiggiisii leh dhaawiciisii muuqdo dharkiisii uu ku dhintay oo dhiig ku yaallo ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam amray in lagu aaso waa karaamo allah subxaanahu wa tacala karaameynayo hadhowdii baa waxaa la soo saaraya maalinta qiyaamaha isagoo jirkiisii dhiiggii sida ugu yaallo midabkii dhiigga weeyaan laakiinse yani waxa weeye carafta ka soo baxaysa nabigu wuxuu ku tilmaamay miskiga inay ka caraf badan tahay marka camalkaas jihaadka la yidhaha qofka ku dhintay saasa ilaha u karaameeyey maalinta qiyaamaha waxay xajka isaga dhow yihiin yani xilliga hadda aynu ku jirno oo kale cashar dilxija qofka xajka adoo kale oo maalan ku geeriyooda xajka dhexdiisa hadda maalan qof baa hadda xajka xarmaday isagoo markaa sacyigii samaynaya ama tawaafkii samaynaya ama dhulka iyo minaya meelaha tegey
ama jamraadka sameynaya buu geeriyooday siiba khaasatan xilliga yani aan loo ogolayn qofka muxramka ahi inuu madaxa wax saarsado qofka isaga ahi ilaahay waa qiimeeyey hadduu ku dhinto oo maalinta qiyaamaha sharaf buu la kulmaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau tilmaamay waxau leeyahay nin saxaabadii ka mid ahaaba hashiisa ka dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam bay wada socdeen nebiga xajkiisii u dameeyey ama xajku nebigu halka unbuu xajiyey xajkii loo yaqaano xajatul wadaac bay ahayd hashiisii buu saaraa ninku wuu ka dhacay san ognahay markuu qofku xiranayo xajka waxa weeye qofka waxa loo ogol yahay qofka ninka looma ogola madaxa inuu wax saaro marka ninka hashiisi markuu ka dhacay qoortu ka jaba waa dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi halla aaso waxba cadar iyo barafuun iyo aan la marin sida qof dhintay oo kale madaxna ayaan waxba laga saarin baloo fiirsada madaxna ayaan waxba laga saarin maxaa dhacay fa innahu yubcathu yowma alqiyaamati mulabiya maalinta qiyaamaha waxaa la soo saaraya isagoo talbiyeysanaya labayk allahuma labayk labayk allahuma labayk isagoo leh ayaa la soo saaraya maalintaas aad garanaysaana waxa weeyaan qabriga laga soo baxayana waa maalin runtii naxdin badan oo allah subxaanahu wa tacala nooga diga weeyaan wamaca dalika isagu wuxuu soo baxaya qofkaas isagoo talbiyeysanaya oo laanna markuu xajka uu xarmanayay ayuu talbiyeysanaya labayk allahuma labayk lahaa hadhowna waxaa la soo saaray isagoo labayk allahuma labayk leh marka halkaas isaga dhow yihiin qofka jihaad ku dhintay aan ku noqono marka xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yihi camalka la sameeyo tobankan beri oo allah subxaanahu wa tacala wax uu ka jecel yahay ma jirto waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi wala ljihaadu fii sabiili illah oo rasuulka ilahay ma waxaa leedahay xataa jihaadka qofku uu galo waxaa ka fadli badan tobankan beri nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam wala ljihaadu fii sabiili illah xataa jihaadka aada ogtihiin qiimaha iyo qaayuhu leeyahay islaamku gaarsiiyey meeshuu gaarsiiya ogtihiin ama fadliga iyo sharafta u leeyahay aad ogtihiin waxaa ka fadli badan tobankan beri aynu ku jirno camalka la sameynayo ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika shayun ilaa mooye qof intuu jihaad aaday naftiisii iyo maalkiisi kulli kaxeeyey oo soo dagaalamay oo naftii iyo maal kusoo waayay meesha qofkaas kama fadli badna laakiin qof baa jihaad gala soo noqday waxaa ka fadli badan tobankaa beri camalka la imaanaysa marka saad arkaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu baraarujiyey marka si arki doono acmaal gaar ah oo la qaban doono oo lala yimaado marka tobankaa beri in laga faaidaysto hadda dhowr beri baa haray dhowrkaa beri in maaragtay laga faaidaysto oo lala yimaado acmaal tiro badan oo khayr badan lala yimaado waa laga maarmaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana ummaddiisa maadaama cimrigeenu yar yahay oo ilaa 60 iyo 70 iyo meelaha aanu dhaafin waxaa laynoo sameeyey amaakin qofka haddii uu tago oo camal la yimaado camalka loo laalaabayo sida yani xaramka oo kale ama xarameynka aan iraahdo sida baytulmaqdis oo kale waxaa kaloo allah subxana wa tacala noo sameeyey awqaat qofka hadduu camal la yimaado camalkii loo badinayo waxaa ka mid a 10 beri u dambeeya bisha ramadaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay laylatul qadriga qofkii laylatul qadriga cibaado la yimaada oo istaaga habeenkaas waan loo dambi dhaafaa bal wuxuu habeenkaasu ka fadli badan yahay 83 sano iyo 4 bilood camalaa samaynaysa waxaa ka mid a waqtiyaasha habeenkii inaad soo kacdo oo marka habeenka 3 meelood meel ka harta tukato waxa way xilli aad u fiican oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraahdo yaan maaragtay dambi dhaaf weydiisanaya aw dambi dhaafa yaa waxay weydiisanaya aan siiya marka waxaa ka mid a 10 ber haddaan ku jirnaa ka mid a awqaadda yani lanoo barakeeyo camalka la laalaabayo si camalkaaga u bato ajirkaaga u bato marka in laga faa'idaysto weeye maalinta jimcaha baa ka mid ah waa badan yihin waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda xadiiska aanu tilmaanay waa xadiis saxiix weeyaan macruuf la yaqaano ibnu rajab alxambali raximah llahu tacala wuxuu leeyahay dalla hada alxadiid على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها wuxuu leeyahay camalka la sameeyo maalmahan ba Allah subxaanahu wa tacaala ka jecel yahay adduunyada maalmaheedoo dhan wax kastoo la yimaado istithnaa la'aan iyadoo waxba laga soo reebin marka xadiiskii uu marka sharaxayo si adkeenay marka in la ogaado laga maarmaan weeya waxa kaloo Allah subxaanahu wa tacaala quraankiisa ku leeyahay intaan aayadda u gudbin ibn xajar raximahullahu tacaala markuu xadiiska ka hadlayay wuxuu leeyahay wa fi lxadiiثi tafdiilu bacd اlazminati calaa bacdin waxaa xadiiskaani ku tusayaa waqtiyada in ilaahay subxaanahu wa tacaala kala fadilay oo qaybi ka fadli badan yihin kuwa kale oo saanu sheegnay 10 beri yani waqtiga 10 beri ku dhex jiraya isku mid maaha
bilaha kale tobanka ku jira isku mid maaha marka bilaha kale leeyahay maalan yani maaragtay bilahan xurmada lahayn oo kale sida rabiicu lawal oo kale rabiicu thaani oo kale jamaadu lawal oo kale jamaadu thaani oo kale iyo isku mid maaha tobanka beri camalka la timaado marka xadiisku wuxuu kutusayaa inay waqtiyadu kala fadli badan yihiin qofkana waxaa la rabaa inuu waqtiyada kala fadli badan ogaado si uu fadli badan u helo oo camalkiisa ilahay subxaana wa taala u badbaadiyo quraanka allah subxaana wa tacala markuu xajka ka hadlayay ilahay subxaana wa tacala wuxuu amray nabiyullaahi aadam nabiyullaahi ibraahim calayhi wacala nabiyina asalaam ayuu ilahay subxaana wa taala amray wuxuu ku yidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kuli daamirin ya'tiina min kuli fajin camiiq wuxuu le alla subxaana wa tacala dadka u yar aduu dhawaaq waadin fi nnaasi bilxaji dadka xaj ugu yar ya'tuuna rijaala waxay ku imaanaya iyagoo soconaya wacalaa kuli daamirin ya'tiina min kuli fajin camiiq iyagoo waliba gaadid saaran daamir yani ama rati ha noqdo ama faras ha noqdee marka qofku meel dheer intuu kasoo safro oo lasoo gaajaysiiyey oo bog laalan yaha weeyaan marka waxay ku imaanayaan iyagoo soconaya oo lagooda ku soconaya imaanayaan ama iyagoo gaadid saaran bay imaanayaane nabiyullaahi ibraahimow markuu dhise weeyaan markuu bacni kacbada hagaajiyo toosiyo weeyaan isaga wiilkiis ibraahim ayaa allah subxaana wa tacala amray inuu dhawaaqo mufasiriintu marka waxay leeyihiin sida ibnu kathiir oo kale waa ka fiirin kartaan nabiyullahi ibraahim markii allah subxaana wa tacaala u yiri dadka xajka ugu dhawaaq see u gaarsiiyaa dadka biyo xajka see baan u gaarsiiya xajka ugu dhawaaqa waxaa leeyahay marka aduu ku dhawaaq keliya meel buura buu tagay wuu qayliyey marka dadkiiba xajka ugu yeeray qof kasta oo marka dhawaaqaasu gaaray bay yidhahdaan culummadu waa dadka loo qorayo ilaahay subxaana wa tacaala u qoray inay tagayaan xajkaas ama ay soo xajinayaan marka waxa allah subxana wataala wuxuu leeyahay ya'tuuka rijaala wacalaa kuli daamirin ya'tiina min kuli fajin camiiq waxay kaaga imaanayaan min kuli fajin camiiq meel kasta oo jiha kasta oo fog bay ka imaanayaan dad baa ka taga yani meelaha ugu fog oo laga yimaado oo marka loo socdo maaragtay xaramka loo socdo ama xajka loo socdo australia oo kale iyo north america oo kale iyo meelahaas laga soo dhaaqaya dadku imaanayaan safar soo aadayaan maxaa loo aadaya marka allah subxaana wa tacala u amray maxaa weeye liyashhaduu manaafica lahum wayadkuruu sma allahi fi ayaamin macluumaat dadku se u xaadiraan yani u shaahidaan u tagaan meeshaas manaaficda camalkooda la yimaadaan wayadkuruu sma allahi fi ayaamin macluumaat allana se u xusaan fi ayaamin macluumaat baa layidhi fi ayaamin macluumaatka marka aayaddaas alla tilmaamay cabdillaahi ibni cabaas wuxuu leeyahay ayaam almacluumaadka aayadda alla ku tilmaamay oo leeyahay dadku ha xuseen ilaahay subxaanahu wa tacala ayaam macluumaadka waxaa laga wadaa ayaam alcashr tobankan beri hadda aynu ku jirno weeyaan tobankan beri oo aynu hadda ku jirno weeyaan sidoo kale ibnu jarir atabari raximah llahu tacaala tafsiirkiisu ku sheegaya wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa wax kale maahane waa tobanka beri oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ku jirno dilxija u horeeya in qofku xajkaas yani alla subxana wa tala xuso qofku inuu tago xajkii oo soo cibaadaysto qofkaan tegi karinna oo meelaha kala joogan xajka tegi karinna tobankaa beri cibaadaystoho ilaahay subxaana wa tacala xuso marka alla wuxuu leeyahay wayadkuru sma allahi fi ayaamin macluumaatin calى ma razaqahu min bahiimati اlancaam ina ilaahay subxaana wa tacala ku xusaan ilahi wuxuu ku hirsaaqay oo xoolaha ah lianna waxa wey markii camalkii soo gebagaboobo ee xajka lala imaanayo xoolo la gowracaya hadyigii ba la gowracaya sida yowm naxri oo kale xoolihii baa la gowracaya qofkii aan joogin xajkana dee maalinta ciidda abuu udxiya samaynaya xooluu gowracaya wamaca dalika bayn hadhow insha allahu tacaala haddaynu gaarno maaragtay udxiyada iyo gowraceeda wax ka tilmaami doonaa aayadda markuu ka tilmaamayay ibnu rajab alxambali raximah llahu tacala wuxuu leeyahy wajamhuuru lculamaa calى ana hadihi اlayaami almacluumaat maalmo hadda aan tilmaanay oo ilahay qur'ankasta ku sheegay leeyahy fi ayaami macluumaat waxaa laga wada hiya cashru dilxija tobankaa bero bisha u horey weeyaan waxaana saa yiri markuu leeyahy jumhur culama wuxuu leeyahy minhum ibnu cumar waa cabdillahi ibn cumar weeyaan ibnu cabaas oo cabdillahi ibn cabaas ah waa xasan albasri caطaa ibn rabaxa walmujahid ibn jabr cikrama qataada ibrahim النخعي وهو قول أبو حنيفة وإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنه intaasoo culmo ah ayaa ku tilmaamay marka ilahi subxaanaه wa tacala ayadaasi في أيام macluumaat waxa weeye wuxuu ka wadaa cashra dilxija maalma haddaynu ku jirno in ilaahay subxaanaه wa taala xuskiisa badna weeyaan intaas oo culmo ah oo saxaabo iyo taabici iyo raggi mataqaana quruum mufadala aan iraane ilaahay subxaanaه wa tacaala saddexda qarni u horeeyey raggii ku jiray ahaa culummada ahaa ayuu allah subxaanaه wa tacaala yani bay noo sheegayaan
saan sheegay cabdullahi bni cumar cabaas cabdullahi bni cabaas xasan albasri cataa mujaahid cikrama qataada ibrahim naqaci iyo yani waxa uu tilmaamay aimada afarta ahayd saddex ka mid ah abu xaniifa iyo shaafici iyo axmed acmaal marka waxaa la doonayaa marka qofku inuu la yimaado oo mustaxab ah oo la doonaya qofku inuu la yimaado tobankaa beri acmaasha dadka waxoogaa badanaaba waxay yidhaahdaan soom keliya bay xooga saaraan oo waxaa maqlaysa tobankan beri dad soomaya soonka badinaya waa camal fiican weeye acmaasha la doonayo in la qabto tobankan beri buu ka mid yahay laakiin nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu soomay maalinta mataqaanaa sagaalaadka loo yaqaano ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soomay ama carafo loo yaqaano oo dadku carafo taagan yihin xajka jooga inagu maarata maalinta ciidda ka horeysa soo dhoweeye maalinta ciidda ka horeysa in la soobo nabiga soomay fadligeena u tegi doonaa marka haddii aad soonto iyo laakiin waxaa la rabaa camaashi kalena inaad ogaato inaa loo baahan yahay cabdullahi bni cumar baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warinaya wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min ayaamin acdamu cinda allahi ma jiraan maalmo ka weynaan badan kana jeceli alla subxaanahu wa taala camal lagu samaynaya maalmahan tobanka ah ma jiraan maalmo ka weynaan badan ilaahayna ka jecel yahay camalka la samaynaya maalmahan faakiruu fiihina min altahliili wاtakbiiri wاtaxmiidi tobankaa bari waxaad badisaan tahliisha badiya tahliishu waxa wey laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah in la badiyo weyaan wاtakbiiri takbiirta badiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wاtaxmiidi alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah markaad soconaysa guriga markaad joogto markaad jiifto markaad fadhido kulli inaad tobankaa beri adkaartaa badiso laga maarmaa weyaan nabiga calayh isalaatu wasalaam baa noo sheegaya waana xilliga camalku alla subxaanahu wa tacaala jecel yahay marka nebigu wuxuu leeyahay faakiruu fiihina min altahliili wاtakbiiri wataxmiidi tobankan beri ilahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay nebigu leeyahay maa min ayaamin acdamu cinda allahi maalmo ka weynaansho badan ma jiraan tobankaa beri ilaahna ka jecel yahay camal la sameeya tobankaa beri ma jiraan maxaa samaysaan faakiruu fiihina waxaad badisaan maalmahaas min altahliili wاtakbiiri wataxmiidi takbiirta iyo taxmiidka iyo laa ilaha illah arrintaa badiya buu leeyahay nabiga calayh isalaatu wasalaam imaamu bukhaari raximah llahu tacala baa wuxuu soo saaray wuxuu leeyahay kaana bnu cumar wa abu hurayra radia allahu canhuma yakhrujaani ila الsuuqi fi ayaami اlcashri yukabiraani wa yukabiru naasu ina waxa laga yaba ina iska aamusannahay qofka haddii aadan xajkii aadin oo aad xajkii alla kuu qoran aado camalkan ba haysa tobankaa bir adin cibaada ku jirta waxuu leeyahy kaana bnu cumar cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa wa abu hurayrata abu hurayrana wuxuu ahaa radia allahu canhuma labadaasu waxay ahaayeen yakhrujaani ila الsuuqi suuqay aadi jireen fi ayaami اlcashri tobankan bir aynu ku jirno yukabiraani allahu akbar bay ohan jireen wa yukabiru الnaasu dadkuna waa takbiirsan jireen innagana waxaa laga yaabaa qofku haddadaan maqaaxidaa soo galaho aan akriyo yani afka iska yidhaha allahu akbar iska yihahdo waxa le ninki ma waash waxaa laga yaabaa in la war ninkii waa isla hadlaya maxaa ku dhacay saxaabada nebigana waa kuwa kan ibni cumar iyo abu hurayra intay magaalada ka tagaan ay suuqa tagaan bay suuqa markay dhex marayaan ba takbiirta akhrin jireen allahu akbar allahu akbar allahu akbar dadka marka suuqa jooga iyo kuwa wax gadanayana way la qaadi jireen takbiirta marka meel go-an ma jirto waxaa la rabaa inuu takbiirta qofku badiyo oo wado oo akhriyaa la doonaya saciid bn jubayr raximah اllahu tacaala iyo cabdiraxmaan ibn abi layla wa mujaahid iyo rag kalena waxa la yihi iyaguna waxay ahaayeen saasoo kale waxay akhrin jireen takbiirtan qaabkan u akhrin jireen waxay ahaayeen allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilahi alxamd sida yani u dhow oo siiqada u dhow oo soo aroorta weeyaan marka in la ogaado oo raggaas mataqan rag saxaabadii ka mid ahaa iyo rag ka mid ahaa maaratay taabiciinta ka mid ahaa ee laga soo naqlinayo in marka wixii salafka laga maqlay lagu koobnaado waa iska fiican tahay marka waxay oran jireen si laga soo naqlinayo takbiirtay akhrin jireen waxa weeyaan allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilahi alxamdi marka qofku intaanu ku celceliyo o akhriyo maaratay baa laga maarmaana maymuun ibni mihraan isna wuxuu oran jiray wuxuu leeyahay adraktu الnaasa wainahum layukabiruuna fi اlcashri xataa kuntu
isagoo hadalka si wada wuxuu leeyahay waxaan soo gaaray waa maymuun ibnu mihraan weeyaane waxaanu soo gaaray buu yidhi dadka oo 10kan beri oo lagu jiro 10 dilxija lagu jiro takbiirta badiya 10ka beri weeyaan bay takbiirtan jireen ilaa aan ku shabaho mawjad badida ay ka qaban awgeed marka wuxuu leeyahay in الnaasa qad inqasuu fi tarkihim الtakbiir dadka hadda jooga yani way naaquseen takbiirta ay ka tageen bay naaqusaan takbiirta ma akhriyaan laakiin ragga aan soo gaaray iyo dumarka aan soo gaaray iyo cidda aan soo gaaray waxay ahaan jireen 10kan bariba kuwa takbiirsadahoo takbiirta akhriyay bay ahaan jireen ibnu qayim raximah llahu tacaala markuu ka hadlayo wuxuu 10kan beri aynu ku jirno waxa uu leeyahay wahiya alayaamu alcashri alatii aqsama allahu biha fi kitaabihi yaqulu wاlfajri walayaalin carsh walihada yustaxabu fiha alikhaaru min altakbiiri wاltahliili wاtaxmiid ibnu qayim waxa uu leeyahay 10kan beri alla ku dhaartay sayn soo sheegnay alla leeyahay wاlfajri walayaalin cashri wuxuu leeyahay habeenadan iyaga ahi ama maalmahan iyaga ahi walihada yustaxabu fiha alikhaar min altakbiiri wاltahliili wاtaxmiidi waxaa la jeclaystay oo la sunneeyey in la badiyo takbiirta iyo taxmiidda iyo tahliisha oo allahu akbartii iyo alxamdu lilah iyo wallahu akbar in la wado laga maarmaan weeyaan saciid ibnu jubayr raximah llahu tacaala raggii taabiciinta odayaasha ahaa oo culammadii iyo fuqahadii taabiciinta ka mid ahaa waxa uu leeyahy idaa dakhalat alcashru ijtahada ijtihaadan xataa isaga yani waxaa laga waramaya waxa weye waa saciid ibnu jubayr oo taabic aha waxaa la yidhi kaana saciid ibnu jubayr raximah llahu tacaala saciid ibnu jubayr wuxuu ahaan jiray idaa dakhalat alcashr 10ka beri markay gasho saciidna waad garanaysaan raggii culummada iyo fuqahadii mataqaanaa taabiciintii weeyaan waxaana dilay oo yani ilaahay ku sababay inuu dilo xajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf ayaa dilay oo qoorta ka gooyey ninkaas yani taabicigaa buu ahaa waxaa la yidhi wuxuu ahaan jiray baa idaa dakhalat alcashr 10ka beri markay soo gasho 10ka beri aan ku jirno hadda oo 10 dilxija loo yaqaano markay soo gasho saciid ibnu jubayr wuxuu ahaan jiray ijtahada ijtihaadan xataa maa yakaadu yaqdiru calayhi wuxuu ahaa mid dadaal dheeraada la yimaada ilaa tabartuba ka baxdaba dadaal dheeraada buu la imaan jiray waxaa kaloo laga wariyey wuxuu ohan jiray baa la yidhi laa tuطfi'uu sirajakum allayaali alcashr war hadamanina faynuusyadiina 10ka habeen oo loo yaqaano 10ka dilxija u horeysa faynuusyadiina laa tuطfi'uu sirajakum hadamanina faynuusyadiina habeenadan bisha u horeysa dilxija loo yaqaano bishaan dilxija yani dilxajana waa loogu yeeraaye innagu waxa u naqaana markaan soo dhoweyno yani bisha carafa inaan caaw dhan maanta markaan ka hadlaynay aan dhahno bisha carafa fiican lanna dadka soomaalidii waxay u yaqaaneen bishaan iyadahay bishii carafa loo yaqaana marka wuxuu ohan jiray faynuusyadiina hadamanina 10ka beri u horeysa bisha carafa 10ka beri u horeysa bisha carafa hadamanina marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yani saasay ahaayeen dadkii khayrka badnaa inay ku dadaali jireen oo ay dadaal badan la imaan jireen oo maaragtay ahaan jireen kuwa had iyo goor camal badan la yimaada khayr badan la yimaada bay ahaan jireen allah subxaanahu wa tacaalana waxa weeyaan wanaaggaas badan buu noogu sheegay maxay marka bishaani 10ka beri u horeysa fadli ku yeelatay arrintaa waxaa ka hadlay ibn xajar casqalaani raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay waladii yadharu ana asababa fi imtiyaazi 10 dilxija limakani ijtimaaci ummahaati alcibaadaati fiiha أو فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره waxau leeyahay sida muuqata sababta keenta bishaan 10keeda beri inay yani ka duwanaato bilaha kale oo fadli badan yeelato waxaa keenaya wax kale ma ahane waxa isugu yimi ummahaat اlcibaada cibaadada kuwa u waaweynaa cibaadada la sameeyo hooyooyinkii cibaadada ayaa isugu timi oo maxay tahay salaadii siyaamkii sadaqadii xajkii kulli waa isugu yimaadeen 10kan beri intaas waa isugu yimaadeen bishaasna ama 10ka berina bil kale oo la mid oo intaas isugu yimaada ma jirto leanna say ognahay xajku yani qof xajinaya ma jiro ramadaanka ama qof xajinaya ma jiro bisha loo yaqaano rajab xajinaya ma jiro ama qof soo xajinaya bilaha kale ma jiro bisha dilxija la soo xajiya waa jira bilaha xurmada qofka loo ogol yahay inuu soo xirto oo allah subxaanahu wa tacala markuu quraanka tilmaamayay wuxuu ku tilmaamay
waxaa jira mataqaan ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati walard minha 4 xurum. ilahi subxaanahu wa tacala markuu bilaha abuurayey, bilaha samaynayay, khalqiga markuu abuurayey, bilaha alla wuxuu ka dhigay 12. dad badan baa laga yaabaa waxay moodaan bilaha in ilaahay subxaanahu in maara dadkan gaalada ugu nimi 12 bilood oo janaayo febraayo inay iyagu bilaha sameeyeen. dad baa mooda inay laga yaabo in aaminsan yihiin. ilahna quraankiisa wuxuu ku leeyahay ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaab illah. balo fiirsada, ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ka dhigay bilaha tiradooda, bilaha yani tiradooda alla wuxuu ka dhigay 12 bilood. waxaana laga dhigay maalintii khalqiga la abuuray weeyaan. 12 bilood minhaa 4 xurum, waxaa ku jira 4 bilood xurmo leh. 4 biloodna waxa way nabiga calayhi salaam baa xadiis ku sheegay oo bisha dilxija loo yaqaano iyo bisha dilqacda loo yaqaano iyo bisha loo yaqaan rajab iyo bisha muxaram loo yaqaano weeyaan. marka bilahaasna bilo xurmo leh weeyaano la doonayo camal fiican la yimaado, camalka la badiyo la laalaabo, ajarkan waa la badiyaa la laalaabaa. cabdullahi ibn cabaas wuxuu qabaa bilahaas haddii aad dambi la timaado dambigana cuqubadiisu waa ka badan yahay, bilaha kale waa ka badan yahay. marka bishan waxaa isugu yimi fadaa'ilu cibaadaat baa isugu yimi ama ummahaatu cibaadaat baa isugu yimi bishan iyada aan ku jirno. marka qofka xajkii buu heli karaa, soonkii buu heli karaa, sadaqadii buu heli karaa, kullina waxa way mashruuc weeyaan. haddaan marka insha allahu tacaala waxay ka tilmaamo yowmu carafa. yowmu carafa maalinta loo yaqaano oo inagu aynu dadka xajka joogaan carafa taagan yihiin, fadligay leedahay. dadka xajka aan tegin camal ay sameeyaana loo sameeyey fadliga uu leeyahay. caaisha radi allahu tacala canha waxay tihi maalin ma jirto ka badan ilaahay subxaanahu wa tacala inuu xoreeyo addoommadiisa naarta ka xoreeyo maalinta carafa loo yaqaano. maalinta carafa loo yaqaano ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa naartu ka xoreeya. mar walba waa la xoreeyaa oo allah subxaanahu wa tacala dad ba u dhaafa, laakiin maalintaas waxay kaga badan ma jirto. ma min yowmin akharu min an yactiqa allahu fiihi cabda min annaari min yowmi carafa. ma jirto maalin allah subxaanahu wa tacaala addoonkiisa uu kaga xoreeyo naarta uu kaga badan yahay maalinta loo yaqaan carafa loo yaqaano. allah marka muxuu sameeya subxaanahu wa tacaala wa inahu layadnu, ilahay waa soo dhowaanaya. ilahay subxaanahu wa tacala say ognahay maalinta carafa intaasoo malyan ilaa 5 malyan ba hadda ku dhow yihiin. 4 malyan iyo xoogaa baa la yidhahdaa sanadkan tegey basaan jeclahay. 4 malyan waxay isugu imaanaya hal banaan baa la isugu imaanaya, hal meel baa la isugu imaanaya. ninkii ahaan jira boqor iyo ninkii madaxweyne ahaan jiray iyo ninkii miskiin ahaan jirana 2 go oo cad baa la wataa. ilaahay subxaanahu wa tacala la hortaaganya kulli meel baa la hortaaganya, hal banaan baa la isugu yimi. 4 malyan oo qof markay meel isugu yimaadaan waxa uu nabigu leeyahay wa inahu layadnu, ilahay baa soo dhowaanaya. ilahay baa u soo dhowaanaya. ilahay see ugu soo dhowaanaya ma naqan inagu. waa dhowaansho ilaahay subxaanahu wa tacaala u cuntanta weeyaan. isagana garna inagu ma oranayno kayf iyo ma oran karno. ilahay see u soo dhowaada ma oran karno. mana oranayno ma dadku see u soo dhowaadaan oo kale mi u soo dhowaadaa dambi weeyaan. sida nabigu u qiray wa inahu layadnu nabigu yiri saasaan u daynayna. ilahay waa soo dhowaadaa, dhowaansho ilaahay subxaanahu wa tacala u cuntanta weeyaan. ثuma yubaahi bihim اlmalaa'ika, ثuma yubaahi bihim اlmalaa'ika. ilahay subxaanahu wa tacala malaa'igta ugu faanaa. malaa'igta la joogta alla subxaanahu wa tacala samada joogta fi mala'i alaclaa, malaa'igta joogtaba alla subxaanahu wa tacala ugu faanaa. waxaa laga wadaa ilahay baa ku shasheega oo yidhaha addoommadeedii waa kuwaas, maxay samaynayaan, maxay rabaan, ogaada u dambi dhaafaya. marka nabigu wuxuu yidhahdaa fayaquulu wuxuu yidhahdaa allah subxaanahu wa tacaala malaa'igtu ku leeyahay ma araada haaulaa'i, waa dadka isugu yimi bannaankaas oo bannaanka carafo taagan oo intaasoo milyan oo qof yihi. waxaa laga yaabaa xilli yani inay timaada laga yimaado inay 1 bilyan oo qof isugu yimaadaan. lanna hadda 100 sano ka hor wax yar baxjin jiray, maantana 4 malyan meelaha sii marayaan. waxaa laga yaabaa 50 malyan 1 bilyan oo qof inay mar isugu yimaadaan ba laga yaabaa. marka allah subxaanahu wa tacala dadka isu yimi wuxuu ku leeyahay malaa'igtu wuxuu ka warramay ma araada haaulaa'i, war kuwaas maxay doonayaan, maxay rabaan. allahna waa og yahay dadkan inay u yimaadeen ilahay subxaanahu wa tacala ahaanshiis. marka imaamu nawowi raximah llahu tacala markuu xadiiskan uu sharxaya wuxuu leeyahy hada alxadiidu, xadiiskan isaga haddayn ornay wuxuu ku tusayaa yani in loo daliishan karo fii fadli yowmi carafa. maalinta carafa loo yaqaana fadliga leedahay. maalinta carafa loo yaqaana fadliga leedahay. marka maalinta carafa ay walaalayaa fadligaasi leedahay. qofkii xajka aadana dadkaas buu gelayaa biidn illahi tacala. dadka allah subxaanahu wa tacaala yani alla kusoo dhowaanaya buu qofkaasu dhex gelaya. qofka xajka teginna oo meel kala joogaana waa maalinta la soomo weeyaan. fadliga adna waa leedahay, weli fadliga waa leedahay. maalinta iyadahay fadaaisha ay leedahay carafa, maalinta carafa waxaa ka mid a waa maalintii diinta allah subxaanahu wa tacala dhamaystiray. maalintii
nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacala diinta ku dhamaystira weeyaan nabigu markuu xajiyey maalinta carafa u taagnaa kabacdi nabigu markuu soo laabtay 3 bilood waxaan gaarin buu nabigu noolaa 3 bilood waxaan gaarin ayuu nabigu noolaa marka waxaa soo degay maalintaas aayaadka tilmaamayay diintan alla inuu dhamaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina soo maaratan waxaa ka horeysay alla subxana wa taala leeyahay alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum maalinta carafa la taaganya nabigu taaganya waxa weye waa maalinta loo yaqaan maalintii nabigu xajinaya weeyaan xajkii xaajatul wadaac la oran jiray waxa uu leeyahay marka allah subxaanahu wa tacaala maalinta carafa aayaddan soo degtay waan sheegi doonaa xadiis ku soo aroorana ama cidda caddaysay maalintaas ahayde waxaa ka horreya marka aayaddan tilmaannay alla wuxuu leeyahay alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum maantay baa diintiinnii gaaladii ka qusatay 100 bay kor u dhaafeen nabiga calayhi salatu wasalaam intii soo raacday oo yani reer baadiyihii iyo magaalada madiina wixii joogay kulli waa soo baxeen maalintaas nabigii baa xajinaya baa la maqlay dhug baa la soo wada yiri ilaa 100 baa kor loo dhaafay marka allah subxaanahu wa taala wuxuu yidhi alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum maanta bay gaaladii ka quusteen diintiinne falaa takhshawhum wakhshawn ha ka baqin gaalada aniga cabsi allah subxana leeyahay kabacdi alla wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinni idiin dhamaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydii baan maanta idiin dhamaystiray ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا دينت إسلام كان دينا أنا هينا الله عليك ما ورضيت لكم ما أنت وحن رالي إني كان نقضي الإسلام دينا دين أهان إسلام بان إني كان نقضي دين أهان دين كلا قف سوق هذا كرأيه دين ما اللي سوق جيني يأيه دين تكريستن كيا يوم بامدوبة يسأيه إسلام كيا مدوبة يأيه حرام ويا دين كلا الله ما بيقانه سبحانه وتعالى إله وانا سخ دينه كلا مركا إن لو قاعد الجمبار ما ويان الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay wuxuu noo cadeeyay diinta iyadahi islaamka kaliya waxaan shaqeynaa quraanka Allah wuxuu ku leeyahay اللهم صل على سيدنا محمد الله wuxuu leeyahay ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين qofkii la yimaada diinta diinahan diinta islaamka diinahan ومن يبتغي غير الإسلام دينا diinta islaamka diinahan qofkii la yimaada فلن يقبل منه laga aqbali maayo وهو في الآخرة من الخاسرين وحنا قليا كوا خسارة بالحقلية حتى دين تهبق قادة هذا الله تما ترى دين كلا جرته ترى هذا كوا خسارة بالجليسة هذا إسلامه هذا ترى دين كلا جرته وأين حشمينه وأين ساسمينه هو من الخاسرين بعد حقلية سوي إلا إسكالاش مركوا الله وحلي هاي ورضيت لكم الإسلام دينا حديث باكو صار مرك أيضا ربنا ضمر إن شاء الله تعالى وحولي هاي نبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بوحو يمي nin baa u yimi ninkaas yahuud buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi low calayna macshara alyahuud nazalat latakhadnaa dalika alyawmi ciidan annaga yahuudda ah haddii aayaddaani ku soo degi lahayd aayaddaani haddii annaga yahuudda nagu soo degi lahayd maalinta ay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayn marka hore uma caddayn cumar bin khadaab markuu yahuudka u yimi wuxuu ku yidhi aayad qur-aanka ku jirta oo waxaa jirta haddii annaga yahuudda nagu soo degi lahayd maalinta ay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayn maalin dabaaldega iyo tamaashaadka la sameeyay baan ka dhigan lahayn qaala cumar ibn khadaab wuxuu yidhi wa ayu aaya aayadda sheegaysa qaala ninkii yahuudka wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina aayaddaas weeye qaala cumaru cumar marka wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu qad carafnaa dalika alyawm annagu maalintaa waan naqaanaa ay soo degtay suuraddaasi ama aayaddaasi waan naqaanaa والمكان الذي نزلت فيه أو نزلت فيه بوسك أي كوشة دكتنا وانقرينا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم وتاغنا النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة بوتاغنا يوم جمعنا واحد عرفه النبي تاغنا مركا عيدنا سود دقيسي مال جمعنا واحد وفرس مركا عرفنا وعيد جمعنا واحد مالت جمعنا واحد ويان مركا ساس الله سبحانه وتعالى وقيمي يهودنا واركتين يعني سي وجعل اسنا ايضا hadda anaga yahuud yani ugu soo degay aayadani waxaanu samaysan lahayn ciid baan ka dhigay maalinta ayada ah marka yawm arafa fadligaas bay leedahay anoo soo ururna insha Allah taala nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu leeyahay markuu ka hadlayay dadka aan xajka aadin oo xajkii yani Allah u qadaray marka ayada ah oo jooga dhulkoodii jooga oo aan yani maalinta soomaya maalinta arafa loo yaqaan in la soomo weeyaan nabigu wuxuu leeyahay siyaamu yawm arafa siyaamu yawm arafa maalinta carafa loo yaqaana soonkeeda oo la soomo
axtasibu calى اllahi alla subxaanahu wa tacala waxaan kaga ajartisanaya in laygu dhaafo ama lagu dhaafo sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadka soo socda. soo maartid maalintaas tobnaadka loo yaqaano ciidda ka horeysa hadda innaga waxaan malaynaa waxay ku beegan tahay maalinta talaadada ah waa ciiddi weeyaan. maalinta isniintaa soo socotay ku dhaafi maalinta isniintaa soo socota iyay ku dhaafi dhowr beri ba kaga haray. maalinta isniinta waa maalintaas nabigu leeyahay qofka soomo soonka la yimaada sanadkii horeba dembigiisa loo dhaafa iyo kan soo socdo dembigiisa loo dhaafa. soo maartid marka in laga fekero oo la yimaado weeyaan. marka culammadu way ka hadleen oo waxay dhahen maxaa laga wadaa dembiga loo dhaafayo. dembiga la dhaafaya waxa weeyaan waa sakaa'ir dunuub, dembiyaasha yaryar weeyaan. dembiyaasha yaryar oo qofku ku dhacay baa loo dhaafaya. dembiyada waaweyn ee toobad bay u baahan yihiin, maalan shirkiga oo kale, sariqada waxba xaddo oo kale, sinada oo kale, kuwaas waxay u baahan yihin toobadkeen, in alla toobadkeen weydiisto kuwaas u baahan yihin. laakiin dembiyada yararka oo sakaa'irka loo yaqaano ba alla kugu dhaafaya kii sanadkii hore ee kasoo socda. qofka haddii aanu yani saqiiro lahayn ka war oo dembi weyn leeyahay, waxaa laga yaabaa dembigaa weyn lagu takfiifiyo weeyaan. dembi weyn iyo saqiira midna hadduusan lahayn ka waran, culimmadu waxay leeyihin waxaa laga yaaba alla subxaanahu wa tacala darajaadka jannada alla inuu kor ugu qaado ayaa laga yaabaa. maalinta iyadahay nabigu wuxuu yidhi khayru ducaai ducaai yowmi carafa oo ducaau yowmi carafa, yani duca lagu ducaysto wax u khayr badan ducada maalinta carafa lagu ducaysto. wa khayru maa qultu ana wannabiyuna min qabli, waxaan idhaahdana iyo wax u fiican wax la yidhahdana wixii aan ku hadlay anigii ambiyada iga horreysay maalintaas. maxay tahay? laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir. marka in qofku maaragtay la yimaado maalmahaas la yimaado khayrkaa intaa tira leeg ayaa laga maarmaana. marka qof waliba ha ogaado fadliga ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay. maalinta iyadahay sayn ognahay ciiddii baa ku xigta dadka aan tagin, aan yani ilahay subxaanahu wa tacala u qadarin inay xajki aadaan ama soo xajiyaan oo dhulkooda jooga inay ciidaan baa loo baahan yahay. ciiddana marka waxay leedahay axkaam baa la xiriirta. waxaa ka mid a ciiddaha axkaamta la xiriirta ama adaabta laga doonayo qofku waa inuu soo qubaysto weeyaan. nabiga calayh isalaatu wasalaam markuu aadayo ciidda aadayo nabigu waa soo qubaysan jiray, dhar qurux badan qofku inuu soo qaato weeyaan. waxaa kaloo ka mid ah ciiduhu laba weeyaan, ciidda loo yaqaano ciidu fitriga iyo ciidu adxaaga. ciidu fitrigu waa tan ramadaanka ka dambaysa weeyaan. taa waxaa la rabaa qofku markuu soo aadayo inuu timiro yar dhowr xabo timiro soo cuno, si witri ah 3 timira 5 timiro soo cuno soo baxo. ama hadda ciiddan ugu soo socota nabiga calayh slam waxaa sunno ka ah maadaama udxiyo la qalaayo xoolo la qalaayo inaanu subaxda hore waxba soo cunin ayaa maaragtay sunno ahayd oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo gaaray. waxaa marka la doonaya marka qofku inuu tago meesha lagu tukanayo. nebiguna wuxuu dadka ku tujiyey meel musallo ah oo bannaan ayuu ku tujiyey. masaajidka waxaa sunna in laga tago oo meel bannaan ay dadka isugu yimaadaan oo halkaa maaragtay ku tukadaan. waxaa kaloo sunno ah nabiga calayh salaatu wasalaam laga soo naqliyey markuu ciidda aadaya meel buu sii mari jiray, markuu ciidda ka soo noqona meel kaloo mari jiray. oo culimmadu leeyihiin waxaa laga garanayaa yani wallahu aclam waxaa laga yaabaa inay macnaheedu tahay in dhulka kuu markhaanti furo oo meesha sii martay marka cibaada u socotay iyo meesha soo marta maaragtay markhaantiga maalinta qiyaamaha ku bato. marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclى waclam wajazaakum allah khayr wasalaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakaatuh. إلا الله إلا الله